haddaad na deen weydaan gacmaynta naga deen weydaan waxa inoo ballanayo yoocada halkan aanaa u dhashay kaadideeda u soo cabay waana ku dhimanaya haddii alla yidhaahdo bismillaahir rahmaanir rahiim saaka waa 6dii bishii 11aad waa subax axad ah waxaanu joognaa Boocame degmada Boocame oo aanu kormeer shaqo ku soo gaarnay ciidamada halkan loo degan iyo deegaanka yagi ah aanu nibi hawlo shaqo aanu nibi ilaahay baa mahad leh iyadana waa lagu barwaaqaysay nabadgelyo ka jirta wax kale oo siyaadahay ma jiro waxa jira xoogaa yar oo gacmaynahoo qoladan aanu jaarkanahay Puntland la yiraahdo ka jirta iyagana waxaan leenahay nabadda cid walba u danay nabadda ilaashada nabadda baa cid walba u dana nabadgelyo aanu idinku baaqaynaa nabadda ilaashada haddaad diidaan idinka cirka roobka annaga dhulka waxba naga yaalin inaanu dhimanana waa noo golahay laakiin idinku inaad wax dhaqataan baad rabtaan aydaana dhiman labadana la isku helo haddaad na deen weydaan gacmaynta naga deen weydaan waxa inoo ballanayo yoocada haddii ilaahay yidhaahdo yoocada inoo ballanayo isku arki doonaa waxaanu leenahay gacmaynta naga daayo daris baynu nahay darisnimada ilaaliya aan dhaqanno Boocame waxaan arkay niman halka maalin istaagtaagay oo garoon halkaas oo wiilal tubaya madali waa meel bi madashi waatan ninkii awood haya halkan ha yimaado hayse soo dhex taaga Boocame ka dhex qodbadayo ninkii awood haya dhalinyarada la khaldayana hal laga daayo waxba kama jiraan kuwa aad halkeer taagteen naga kaxayseen annagay meesha noo joogan wala kuwii idinka dhabarka idinka leyn lahaa waa wiilashayadii waa shaqaalahayagii waa askartayadii annagay noo joogaan waanu ku ognahay waa gaadiidkayagii halkaasay noo joogaan annaga geesanoo koog laakiin waxaan leedahay hal isnabadgeliyo nabadgelyada hal la ilaashado waxaan kaloo leedahay nimaan waxba qaban karin iyo hadlin halkan aanaa u dhashay kaadideeda u soo cabay waana ku dhimanaya haddii alla yidhaahdo cidna u daba fadhiisan maayo ciidaan u daba fadhiisanaya ma jirto dhagoolow maqal waxaan leedahay sidaasaa inoo ballana waxaynu isku ognahay khayr iyo nabadgelyo reer Boocamana hal baan leedahay reer Boocamow talaydii taalla dalku waa dalka iyagii aanu difaacaynay waa dal Soomaaliland leedahay dadkuna waa Soomaaliland laakiin dad isugu beedhaan idin leedahay dad isugu beedha baan idin leedahay saaka ma filayn in la yiraahdo wiilal xasan ugaasa baabuur intay ka xaysan halka la aaday ma filayn saaka ma filayn laakiin waa wax iska dhaca maama xun baan idinku maamaaya ilaa shiyo dhaw ayaa la oran jiray ilaa shiyo dhaw yaa la oran jiray waxaan idin leeyahay dib isugu noqda haddaad israaci weydaan haddaad israacdaanba halkan annaga ka talinay haddii la yaana ka talinay ama israac ama kala qodnaad أنا كتلينيا إلهينا يجوا عبوري إلهينا حلك يجوا ديبي أنا كتلينيا أنا سومالي لنا وإذا كان واحد لي ولا ليال waxaan ku horeeyay ku yahay ku dambeeyaan looran waxaan ku horeeyay yahay ku dambeyn baa looran jiray dalkii waa badan yahay xasan ugaasna waa badan yahay dal badan baa inaga horeeya annaga wixii dawladda lagu daayo wixii beelaa iska difaaca wixii dawladda annaga ku filan laakiin wixii beelaa miyadan iskaga filayn يا الدولة أنك إذا كفلان هذه الدولة إذا الحق شيء أنك أشرين لكن وح الشعب يسكفل هذا نبت قليتنا إلى شذا نبت قليا لقول هذا لقول لغنياي وعن كل شيء يا لما دوق أصلا واحد ليه غير كديم تكده يطلع سقول له أحد أنت أنا واقول دريا لما دوق أصلا غير كي يسكل تشيدين الإجابة جاية نايس
laakiin waxaan leeyahay reerku isku ururin buu u baahan yahay kala ururin uma baahna intaasuna waa kaftan cuqaashi waa joogtaa waxaan leedahay markaad istifaacdaan baa lagu difaaci karaa markaad adigu istifaacdo baa lagu difaaci karaa markasta inaan ku difaaco diyaar baanu ahay laakiin waddadan ku difaaci lahaa ka muuqato waddadan kugu difaaci lahaa ha ka muuqato adiga sidaas inoo ballana saakana sida aan u dhex fadhino ka maqnaan mayno subax walba waanu joognaa ciidanka yagiina waa joogaa annaguna waa joognaa kama maqlin sidaas inoo ballana ku abshira waxa la sheegay doorasho inay magaalada imanayso soo doorashada geli maysaan xasan ugaaso waan ogahay magaalada in lacag taalo waan ogahay daay hadalka magaalada in lacag dhex taalo waan ogahay oo doorashada loo keenay oo furfurka ciidanka iyaga loo keenay waan ognahay haddaad wax iska qaban weydaan anaa gacan wax ka qabanaya ballan baan ku qaaday haddaad wax iska qaban weydaan oo isku dhiiran weydaan anaa gacan wax ka qabanaya hadhowto nin baan laga xidhay in askar baa sina wax yiri yaan maqlin berito wallaahi billaahi tallaahi dib idinku dhowran maayo foolxumada aad ku dhex jirtaan iyo dhaqan xumada iyo dayacnimada iyo magac dilka iyo sumcad xumada aad la timaadeen ma qaadanayo dib u qaadan maayo saaka heesi cabul toodhan idinku maamaaya soo garan maysaan ha ku dilo ma jeerteen xasan ugaasa ka digo ha ku dilo ma jeerteen xasan ugaasa ka digo dawladiyay wax ku qaban inta dawladu saatay iska sii digleemayo nafta darajo kama qaban ya tiibaad saaka ku jirtaa iscadeeya aanu dilaanayo xorooba haddaydan isxorayn idinku cid idin xorayn kartaa ma jirto wixii idinka awood badan annagaa u joogna laakiin muuqda haddii halkaa doorasho la keeno sanaaduuq la keeno tan waxaan ka dhigayaa meelaan dumiyo waa duminayaa wallaahi tedhisaban waxaan inaan ku afuufay haddii doorasho la keeno aan maqal tedhisaban waxaan ahayn wallaan lagu afuufay iyo bille ku abshira aan maqlo sanaaduuqba halka la keeno waa laga codaynaya maba soo geli karto iidaaya waxaan kaloo idiin sheegayaa wiil wasiire baa halkan wax wadwado marba xoogaa loo soo dhiibaya loodhan baabuur soo kaxay shalay xaguu joogay markii lagu muqmadaynayay garowga dhexdiisa ragga xasan ugaas haldoorkii xasan ugaas markii lagu qurbeeyey lagu muqmadaynayay xaguu ku noolaa garow wuu joogay maantana iyagiiba u wadaa dawaayaan